salaamullaahi calaykum idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha meel kastee oo aa dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenna faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeenna hadduu rabbi idmaan ku qada dhigi doonaa qodobo xiiso badan oo ay ka mid yihiin ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya xamse cabdi bare iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi oo khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo ka wada xaajooday xaaladda magaalada laascaanood ee sii cakirmaysa kooxda al-shabaab oo digniin ka soo saartay mukhaadaraadka ugu faraha badan ee lagu isticmaala magaalada muqdisho iyo ciyaal weerada iyagoo tilmaamay in ay hadda kadib bar tilmaameedsan doonaan kooxahaasi gobolka gadow waxaa ka taagan shaqaaqo kadib markii laba nin oo lagu tuhunsanaa in ay ka dambeeyeen saraakiishii dhowaan lagu dilay gobolkaasi gadow ayaa la tilmaamay mid ka mid a in hay-adda nisa ay dishay kadib markii isagoo xog laga raadinayo ay biyo ku dileen dhanka iyo ethoobiya waxaa ugu dambeeyey dowlad deegaanka soomaalidan idhaahde gobolka city dagaalo xoogan ayaa ka socda kuwaasi oo dhex maraya maleeshiyaadka deegaanka iyo ciidamada liyuhu booliska oo garab siinaya iyo canfarta oo duulimaad xoogan ku haysa gobolka city gaar ahaan galbeedkaasi qodobo kale ayaa daawadayaal inoo raaci doona hadduu rabbi idmo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya hadduu rabbi idmo saaxiibkay gooni oo inta badan ka faallooda guud ahaanba xaalada geeska africa gooni fargoda waa mahadsan tahay haddaan ku hormarno beryihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho waxaa ka jiray arrimo dhibaato ku haya dadka shacabka ugu horeyso arrinta ciyaal weerada iyo daroogada marka shabaabkii maanta waxay soo saareen warbixin la yaab leh ayagoo sheegay inay beegsan doonaan ciyaal weerada iyo nimanka la yidhaahdo kuwa daroogistayaasha marka waxay sheegeen mayaga ka taliya mayagaba ka taliya markay soo saarahayaan micnaha waxay leeyihin waa beegsanayna awla magaalada muqdisho qaraxyo iyo dhibaato iyo madax jibis oo ka samayn jireen soo ma hadda qaraxyada iyo madax jibiska waxaan ku bedelaynaa leeyihin oo weliba aan kow ka bilaabi doonaa nimanka ciyaal weerada dadka dhibaateeya oo maalin walba dadka biteriga iyo balaaya dabada kaga guro nimankan buugaa lagu fiirinaya sidii ciyaal faacaligi waagisi aad barjiri jiray marka lagu qabto buugaa lagu kala bixina haddii lagu soo baxo in lacag lagu siiyo lacaga lagu siina haddii kusoo baxdo in middo lagu geliyo midyaa lagu gelina haddii kusoo baxdo in telefoonka laga qaatay laiska daaya waa lagu daynaa cunug 15 jira kuu fiirinaya layiri buug markaas wuxuu leeyahay ma fiiriya fiiri haddii la dhawo fiirina waxaa usoo baxo leeya bitri in dawada laga geliyo maalin dhaweytinin baa asaga lagu sameeyey karaan asagoo maraya markaasaa inta buug telefoonka laga qaatay asoo telefoonka laga haya cunug yaro 15 jira buug u fiiriyey waxaa isoo baxo yiri bitri in dawada laga geliyo markaasaa anoo naxsanoo yiri telefoonka waa biga qaadatayna bitriga baa iga deysiinaan dhaho yiri markiiba anoo yaabano dhinacyada laga mididina laygu hayo oo isheeg laba asgari meel kasoo baxday xabadii ridin oo yiri xabadihii ridin labada asgari waa kala carareen telefoonkiina ku tageen oo yiri badari saasoo kaga badbaaday marka meesha waxaa jira xaalad halis ah ka jirta ciyaal weeradan sawtii bariga dhaweyto la cidhib tiray kaaraan iyo deegaanadaasi laga maxaan ku waa la soo aruuriyey markii la soo aruuriyey xabsidaa lagu guray markii cabar xirnaadeenna waa la sii daayey kadibna digniinaa la siiyey nin walba hooyadiis iyo waalidkiisa yimid digniinta kama dambeysaa la siiyey marka digniintan waxba matarayso ciyaal weerada laba meel bisa ka jiraan waa madiino iyo maxaa la yidhaha karan inta kale magaalada muqdisho ciyaal weera lagama yaqaan waana hal beel intooda badanba beesha abgaal waay marka maba jiro ciyaal weero kale marka dhibaatada jirto waxay tahay dadkani dowladda ku mashquulsantay habargeerta xilal hel ma sala xil loo qaybinayo marka usugaala socota habargeerta musuud usugaale dekada usugaale waa niman ilbaxinay nimanka shaqaysanayaan marka mar dekada iyo alboorka iyo hadii loo jiro war ma jiro shaqadooda ma haba bateri wadista wax ku falay 600 habargeera ka shaqeynaysa meel walba oo dekada iyo meel walba ka shaqeynaysa waana kaftan intaas marka nimankan marka waxa weerar joogtaan ku qaadan dhaheen Abu Muscab ninka la yiraahdo ee afayeenka howlgallada shabaab ninka la yiraahdo ay wuxuu yiri dadka shabaabka ee Muqdisho joogo waxay amar ku qabaan ay tallaabo degdeg ka qaadaan dadka maxaa la yiraahdaa sheegeen ciyaal weerada iyo kuwa daroogada calaqa sameeya marka dadka shacabka Soomaaliya xataa way soo dhaweynayaan arrintaas haday sameeyaan shabaabka waa arrin dhib ku qabaan ciyaal weeradu waa tuugo waa ciyaal weerada dawladda wax ka qabanaysay iyagu iyaguna say wax uga qabanayaan dawladdu corruption ku jiro mar walba ay soo qabato way sii deysaa ciyaal weerada marka saas waxtaas ka duwan haddii lagu sameeyo shabaabka ay arki lahaayeen oo shabaabka dhowr ay ka dilaan kuwan kurka jarayaanba marka 5 iyo 4 laga dilo ciyaal weerada dhan waa la weyn lahaa marka taas shabaabkan jawaadooda wax weyn ka kordhi doonta magaalada muqdisho waa laga nasan doonaa marka halkaas ay arrinta ugu dambeysay maxaa la yiraahdaa magaalada muqdisho waxaa kaloo jira fargodo laba qofood oo dad maxaa la yiraahdaa la sheegay bajaajley inay yihiin
ayaa lagu qabtay gobolka Gado هي marka lagu qabtay waxaa looga shakiyay inay dileen laba sargaal oo mid yahay Bakaal Kooke inay ku lug lahaayeen arrintiis iyo sargaal kale Maxamed Aweys labadooda inay ku lug lahaayeen wali waxa uu diran Maxamed Aweys sariirtiisa waxaa lagu xiray qarax arrinta la yaabka mucjisada leh taasay noqotay marka labada wiil waxaa la yiri way ku lug lahaayeen arrintaas baaritaan ku socday balad xawaa laga soo waday doolar waa la geeyay doolar markii la geeyay ay Muqdisho in loo dooliyo oo halkaas baaritaan lagu sameeyay CID loo gudbiyay ayaa la isku ogaa inta la gaarsiin hay'adda NISA ninka uu qaabilsan halkaas ayaa wuxuu sameeyay isla markii ninkan biyo ku harqiiba biyo inta dhaxgalay madaxa u galiyay wuxuu yiri waa ina sheegtaa inaad arrintaas ka dambayso uu sheegi waay markii biyo lagu celiyay oo ku nafbaxay biyo oo ku nafbaxaa marka meesha ku dhintay waxay sheegaan warqad waxay ku buuxiyeen labadan oo laga shakisnaa mid kamid ah inuu biyo ku harqaday oo dhintay marka taas ayaa la yaab arrinta marka la isweydiinta mudan waxa waaye ninkii baaritaankiisa socday dana biyo ku harqaday waa wax la yaab marka dawladda ayada gacanteeda ku dishay taas arrintaasna meesha ay ka dhacday gobolka Gado gaar ahaan magaalada Dolow ninka kale ayaa hadda magaalada Muqdisho loo duuliyay maanta iyadoo la leeyahay baaritaan ayaa lagu sameyn doonaa ninka saaxiibkiisa ahna saas ay ku dhintay oo nin dhalinyaro ayuu ahaa bajaajley ah waa gartay gooniyow arrinta ugu xiisaha badan waxaa weeye in ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu khadka telefoonka kula xidhiidhay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi maxay ka wada hadleen horta fargodow Xamse Barre wuxuu wacay oo si toos u wacay ninka la Muuse Biixi Cabdi waxaan iska wareysteen arrinta la sacaanood iyo dhibaatada ka jirto maanta ugu dambeysay arrinta la sacaanood dagaal culus ayaa ka dhacay oo waliba madaafiic joogta lagu garaac laba qofna ku dhaawacantay qof raydan oo ku dhintay oo dhowr iyo 10 midfac lagu tuuray magaalada la sacaanood laakiin Muuse uu ka garaabay baa leeyahay Muuse uu ka garaabay wuxuu yiri arrintan socoto iyo dhibaatadan iyo waxan wax macquul ma Xamse Barre asagu waxay isla garteen in dhibaatada halkaas ka jirto ay tahay qalad inay si socotaan ay sax ahayn laakiin wuxuu sheegay in arrinta la sacaanood iyo xalkeeda waxay ka soclaado leeyahay dadka deegaanka iyo garaadada meesha ku sugan wuxuu sheegay mar walba wax la isku soo dhaweeyay ama wax la isku abaablo ama wada hadal la galo oo macnaha aan qorsheeno waxa diiday yiri lugta ku dhifanay garaadada iyo dadka odayaasha ku sugan magaalada la sacaanood marka garaadada ku sugan la sacaanood ay qorshooda mar hore sheegeen arrintooda mar hore sheegeen waxay dhaheen anagu wax wada hadal la yiraahdo oo aan Muuse Biixi la gali karno inta oo ciidamada madaafiicda nagu dul hayay gantaalada anagu ma jirtay dhaheen welina tiyo ku taagan asagoo marka waxa uu rabaa asagoo ciidamada magaalada la sacaanood duleedkeeda dhooban yihiin oo gooja cad gantaalada laga soo tuuro magaalada la sacaanood loo garaacay in macnaha wada hadal la galo Muuse Biixi Cabdi kadibna wada hadalkaas laga miro dhaliyo rabaa ay taa macquul ba taasna macquul ma marka waxa dhahay wax la wada hadlayo wada hadalka marka wax ka soo bixi waan Muuse Biixi hadar ciidamada la sacaanood ku soo celiyo laakiin inta wada hadalka laga galay ciidamada 50 km 60 km magaalada ka fogeeyo meel aan cabsi aan ka qabin oo xor ah hadli karno markaas nagula yimaado go'aankeena aan qaadano laakiin qoray dhuuntiisa ku haya ee hadal taas waxa waa door qorqabad biyo kuma cabto marka taas aqli ma ahayn arrin suuragal ah raisin ha adinku digaaga dhahay anagu dooraan dhahnay waxa u baahanay anagu dooraan dhahnaa meel walba dad goorna naag Muqdisho ka tagtay waxay tagtay Hargeysa la yiri marka masagay ku soo dugsan jirtaa la yiri meel oo Hargeysa dhexdeeda marka waxa lagu daadan jiray waagi hore dhulka la iska daadan jiray loorka 50 loor 100 loor dhulku daadsato masagadii marka waxa uu yimiday isha doora timid digaag baatid waxa radde inta imaado dooradii waxay cuntay baashi maxaa la yiraahdaa galnaydi baashi masagadii marka ka cuntay nina marka wiil dhalinyaro u wardeenay maamada oo iska leedahay baashi masagada wiilka dhalinyarada wuxuu leeyahay naag maqaayad kule maqaayad ka soo baxay doorada markaan oo qaadaan uu arkay oo laga furay doorada soo yaacday naagta maqaayada leed wuxuu ku yiri dagaal doorada yeesho maanta dhakol celna warxunugu muxuu leeyahay warkaale doorada naga cesho badarkeena cunuga koonfur waa maamada eedidiisa meesha raashinka ku dajisay marka cunuga muxuu leeyahay waryaa maxaa oranaysa waryaa soo isku qaylna murna meesha ka dhacay wuxuu yiri anigu waxa sheegay inta iska deysid doorada badarkeena meesha ka laga cesho marka arrinta doorada dhibaa ka taagan waqooyiga meelaha lagu sheegi karay Ethiopia qalbi isku luqada tii Ethiopia iyo maxaa la yiraahdaa waqooyiga marka arrinta dhibaato ay keentay marka waxaan qasab in RSC anagu qasab ma yeelanay taagan way diideen Muuse Biixi wuxuu rabaa qasab marka ra'iisul Xamse Barre iyo Muuse Biixi Cabdi hadalkooda waxay ka garaabeen dhibaatada inay si socotay ka garaabeen waxayna sheegeen in arrintaas xal loo raadiyo in xabajoojinta Soomaaliya ay dhab ka noqoto si walba wax lagu xalin karo iyo ciidamada dil la fogeyn karo in laga fogeeyo si markaas wada hadalka uu guuleysto oo miro dhalo gooniyow ma la dhihi karaa arrintan maxaan ku dhahay RSC xoogaga RSC ee inta badan u dagaalamaya inay maamul goboleed ayagu ay u madax banaan yihiin samaystaan soo lama dhihi karo de waa nafsi ay gurteen qoladan Somaliland sababtoo ah 30 sano la lahaa warkaale wax walba walidin ogol yahay ku biira dawladda federaalka Soomaaliya
marka iyaga laftigooda in ayagana la diido la yiraahdo ilaa iyagu waxay dhaheen Soomaaliya ka mid ma nihin iyagana in la diido la yiraahdo Soomaaliland ka mid ma nihin soo xaq uma laha arrintaasi waa sax de isku meesha waa jugjug meesha joog waa hay waa tilka batilka saas waa saxan ku gud waa marka Somaliland in ayadu qasab la qasbo oo dawladda Soomaaliya lagu daro ma ogola in la weeraro madaafiic lagu garaaco ma ogola haddana SSC waxay ku qasbaysaa inay Somaliland ka mid noqdaan taas horta marka wanaag ma aha teeda kale waxaan waa qabiil dadka meel in kasta wada degan yihiin dad dhaliy yihiin haddana walaalo yihiin arrinta horta mar walba dhammaan doontaa wada heshiis wada hadal iyo go'aan ka soo bixi doono laakiin waxa dhibka jiro anigu aan xor noqdo oo go'aan aan gaaro iyo xor noqomaysid hadda aniga adiga kula midoobo waa ay dilay sidii shalay ay dishay oo dadka iga leesay 207 ilaa hadda 400 al sii maraya maanta isbitaalka magaalada Laascaanood ninka ku sugan dhakhtarka wuxuu sheegay 96 dhimasho SSC dhankeeda la diiwaan galiyay iyo 560 dhaawac inuu diiwaan galiyay oo isbitaalkiisa diiwaan galiyay laakiin de kuma jiraan nimanka ciidamada dagaalamay ciidamadu kuma jiraan waa dad shacab dadka shacabka waa ciidamada ayaan arintooda waa gooniba ciidamada dagaal ku jiro iyo kuwa Somaliland iyo kuwa SSC dhimashadooda waa gooni taas dadka shacabka laga hadlaya teeda kale waxay sheegeen qaramada midoob iyo hay'adda OJA waxay dhahday waxa magaalada ka barakacay 185 oo qofood 6 oo kamid ah waxay gaartaa liir gobolada Soomaaliya oo gobolada Soomaaliya kale iyo Ethiopia u galeen oo meelaha ay ku kala qaxeen inta kalena waxa way meelahaas ay dhooban yihiin marka dhibaato aad u weyn halkaas ka jirto biyo la'aan iyo baahi iyo haraad noo ka jira iyo maxaa la yiraahdaa ishaag on iyo waxaan dhamaanan iyo baahi waa isku darsiin dadka intaasna wax dad u garaabay wax u gurmanay malaha dadka culeys saaran dhibaato saaran weerar ku socdo madaafiic ku socoto guryahoodii la dumiyay door ciidan way joogaan oo teendooyin xataa meestaan aan kugu daray gooniyo waxaan arkahayay Garowe iyo waliba deegaano kale oo fara badan oo Puntland kamid ah ayaa waxa jira dad dumar oo dadka ka soo qaxay deegaanadaasi in ay dadka ka codsanayeen in la kaalmeeyo dhanka kale waxay tilmaameen in guryuhu ay qaali yihiin oo guryaha loo raqiisiyo oo la gacan qabto waliba waxay aad iyo aad ugu gacan haatiyeen reesasi iyo guud ahaanba cid walba oo ka qayb qaadan karta dhibaatada haysata in ay wax ka yareeyaan marka waa la qaxay dagaal haduu dhacana sideedaba meeshaas waa la qaxaya marka sharci horta waxa fiicnaan lahayd nidaam dadka soo qaxay ama soo galootiga loo sameeyo oo guryo loo dhiso deegaan loo sameeyo si macnaha ku meel hadda Puntland oo kale waxa la rabaa inay sameeyso dib u dajin wax la yiraahdo inay sameeyso xaafado dhan loo baneeyo oo la yiraahdo halkan daga intii xal aad ka noqonayso ama si idin ka noqonayso ama teendooyin iyo waxyaabo inta loo dhiso oo xataa guryo loo dhiso meelo badan loogu diyaariyo la dhaho bal halkan noloshiina ku sii haysta markii dhulkiina nabad noqdana iska laabta marka ninka meesha jooga asagaaba la haystaa Sayid Cabdullaahi Dani waxa ku kacsan mucaaradka waxa ku kacsan ragga musharaxiinta nimankii Aranjan la dhihi jiro asoo ka tirsanaa jiro ka baxay iyo doorashada qof iyo codka la isku haystay Farol iyo rag kale meesha ku weeraray magaalada Garowe xabad ayaa ka dhacayso asaga qoorta loogu jiraa Sayid Cabdullaahi Dani teeda kale dagaalkii Dukaraq asagana waxa way culays ka jiro oo ciidamada Somaliland waxa soo fadhiyo kuwa Puntland marka ninkan gurmad oo SSC u fadhiyo meesha ma biyaalo ninka Axmed Karaash oo meesha ka dadaalay Asadiyaan oo dhahay war dagaalka la gal dadka la caawiyo oo huba la geeyo ciidamaha la geeyo ama daaweyn ha la geeyo dhahay laakiin asagu wax badana kama laha ninka la yiraahdo Sayid Cabdullaahi Dani asaa culays tiis u yaabanba marka farqado culays weyn meesha ka jiro in dhibaatada way sii kordhaysaa wada hadalna meesha rasmiya ma jiro hadda gooniyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dhagaysigiina meel walba aad dunida kaga sugan tihiin soo dhawaada ayaan leenahay gooniyo dowlad deegaanka Soomaalida gobolka City waxaa ka socda gaar ahaan degmooyinka galbeedka xiga gobolkaasi Dhuunyar waliba galbeedkeeda markii la sii yiraahdo muddo 5 maalmood waxaa ka socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya dadka gobolkaasi degan oo Soomaali ah iyo waliba qoomiyadda la yiraahdo Canfartu waxay ogtahay dagaal waxay ogtahay waxaan jeedaa in gadaal laga riixayo oo qoomiyadaha dalkaas Ethiopia oo dilba ama hubka iyo dhaqaalaha iyo garab istaaga dhan walba siinaya xataa dawladda dalkaas Ethiopia marka wararkii ugu dambeeyay maxay tilmaamayaan horta farqado meesha dagaal ayaa ka jiray gobolka City ayaana dagaalka ugu badan ka socda galbeedkeeda mar walbana waa la isku qabsadaa haddana dad fara badan ayaa looga laayay Canfarta mar ka dambeysana waxay isku dayeen inay barashar gareeyaan sida ay sheegaysana taageero ama goos ay waxay ka haystaan dadka kale ee qoomiyadaha kale ku sugan dalka Ethiopia marka culayskii uu sii kordhay dagaaladuna waa sii bateen Canfartiina iyo Leopoldskana dagaal aad u qaraar dhaxmaray dad fara badan ayaana laga dilay Canfarta welina way soo taageen fargodow waxa u malaysaa in hub
iyo waxyaabo kale la siinaya canfarta oo mar walba dhahayo wargala soomaalida soomaalida iska celiya marka waxaa la rabaa in laisku laayo soomaalida iyo maxaa la yirahdaa canfarta in laisku laayo dagaalkooda iska daba dheeraado qolooyinkan kale ee dagaal kasoo baxay maxaa la yirahdaa oromada iyo amxaarada iyo dadkan kalena nafis ay helaan usoo kabsadaan maadaama ay naftikooda dagaal ay galeen oo Ethiopia iyo TPLF iyo wadanka dhanba dagaal ka dhacay marka mar walba waxaa u malaysaa Ethiopia inuu dagaal ka dhamaan oo Soomaaliya kaliya dagaalku ma ahayn Ethiopia naftikeeda dagaal ku jirta mar dhow waxay haystay dowladda iyo Tigray ay haystay haddana canfarta iyo waxay haystay iyo Soomaalida mar walbana dagaalada saas oo kale taa way dhacaan marka maalin dhaweyto qof waxa ii soo qoray oo kalba reer Soomaaliland gooniyow maxaa la waxaa tahay faqash xune waxa iska celisaa uu yiri canfarta meesha Ethiopia kula dagaalamayso horta ari Ethiopia weligeey ma tagin reer Ethiopia ma reer Muqdisho ah marka taas way ku qaldan qofkaas uu ku qaldamaa leeyahay koonfur baa tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dagaaladaasi haddii aan kugu daro waxaa ka qayb qaadanaya maleeshiyaadka dowlad deegaanka Soomaalida waxaa la tilmaamayaa in gobolka City gooniyow dadka shacabka ku nool ay aad iyo aad saddexdii bari ugu dambeysay ay u gurmanayeen dadka maxaan ku dhahay deegaanadaasi la doonayo inay canfartu ka barakiciso ee dagaaladu ay ku hayso haddaba dhiirigelin ayay u noqonaysaa in ciidamada iyo weliba dadka shacabka iska difaacaya dhulkooda difaacinaya in lala garab istaago daawooyinka cunnada iyo wax walba oo kaalmo oo ay u baahan yihiin dowladda laftigeedu waxaan ku dhiirigelinaynaa uu hogaaminaya madaxweyne Mustafa in ay garab istaagaan dadkaasi shacabka ee dhibaatada ay ku hayso canfartu gooniyow dhulkan ma laha laakiin iyadu way sheeganaysaa dowladda federaalka Etoobiyana waxay doonaysaa inay canfartu qabsato waayo halkaasi waxaa mara jidka weyn ee dekada dalkaasi Djibouti ku xidha aan idhaahdo tareenka ayaa mara iyo weliba jidad kale oo fara badan marka ilaa laba jid baa marta dhulkaasi oo la doonayo in canfarta lagu magaranaysaa lagu wareejiyo si ay Soomaalida looga fogeeyo marka arrintani waa arrin muddo soo noqotay lamana garanayo laakiin waxay u baahan tahay xal siyaasi ah ayay u baahan tahay maxaa barnaamijkeena ka dhiman fargodow horta magaalada Djibouti caasimada dalkaasi Djibouti waxaa la leeyahay doorasho ayaa ka dhacday doorashadaas oo lagu diyaar garoobay xildhibaanada 65 xildhibaan ah oo doorashada ka qayb gali doona in la dooranayo ayaga maanta marka xisbiyada mucaaradku aad u dhaliilayo in macnaha isheeg mar walba iska soo baxay Ismaaciil Cumar Geelo oo doorashadaas wax macna aysan keenin oo mar walba iska taagan yihiin ayaa diidan waliba banaan bax ay sameeyeen waxa la leeyahay mar walba anaga inaan codeyno ma dhahno doorasho ay galina waxba ma soo kordhinayso 65 xildhibaan soo noqonayso maxaa la dhahay ninkii la yiraahdo Ismaaciil Cumar Geelo mar walba hor taagan marka aaba 30 jir ah ayaa wuxuu yiri aniga iyo qoyskayga ma codeyn doono maadaama mar walba aan Ismaaciil Cumar Geelo u codeyno taas wax macna ma keenayso laba xisbiyo kala meesha ka jirto maxaa la yiraahdaa labadaas xisbina waxba ma helaan xorna ma jirto xisbiyada dimuqraadiga waxay sheegeen in wax xor ah oo doorasho xor iyo xalaal ah inay iska dhaceen meesha la yiraahdo Djibouti marka waxba ma tarayso horumarna ma gaarino marka wuxuu dhahay laakiin hadda Ismaaciil Cumar Geele dhibaatadan hadda Soolbaba lagu eedeynaya Soomeeka inuu karkaarka weydaaran doono dadka shacabka reer Djibouti waa dad fiican ay diidi doonaan wala asaga horta xisbi oo iska haysta Ismaaciil Cumar Geele waa xisbiga talada hayo xisbigaas waxa la yiraahdaa UMP waa xisbiga asaga uu hogaamiyo marka Ismaaciil Cumar Geele waa nin muddo dheer soo hogaamiyay Union Party of Presidential majority UMP gaas oo hogaamiya muddo fara badan aynu haystay wax oo hadda dad qiyaastii 23,000 oo qof ah oo dad sharci haysta ay mar walba codeey marka waxay dhaw codeynteen anagu wax ma matarayso dhibaato ayaan ku qabnaa Ismaaciil Cumar Geelena inuu soo laaban doono og tahay marka kuraas mar walba iyo dood mar walba ay taagan oo mar walba dadka isla dadkiina hor taagan yihiin wax aan ka codeyno ma garanayno marka waxa la leeyahay dhibaatada ugu badan ee meesha ka jirto waxa la leeyahay doorasho oo aan dhamaanin oo mar walba xisbigiisa uu ku soo baxayo oo ilaa iyo waxa la leeyahay in sheegeen 97% la og yahay meesha wax u dhici doonaan waxa ma soo kordhinaysa dheen marka xisbiyada kale jira meesha waxa la yiraahdaa MRD iyo ARD labadu waxay sheegeen in doorasho xalaal ah aysan ka dhicin meesha la yiraahdo Djibouti marka way ku daaleen waliba waxa la yiraahdaa labada xisbi qaarkood mid kamida gacanta ayay ku haysaa oo dawladda gacanta ku hayso biilka iyo lacagaha iyo waxyaabaha maartay ka bixisa si looga dhigo inay xisbi jira yihiin ma xisbiyadaas kaasde waa mid magac yaala mogtahay marka waxa la leeyahay Ismaaciil Cumar Geele iyo groupkiisa inta badan waxa la leeyahay 1977 ilaa hadda ayaga iska haysto kuraasta oo meelba uga socdaanba waa 1977 ilaa hadda waa Xasan Guuleed Abtitoon iyo asaga iyo wixii oo family waa mogta dadkaas familka iska haysto marka doorashadu wax micnaa ma soo kor mar walba la doorto jugjug meeshaada joog waay marka Faransiiska ayaa inta badan wadankaas gacanta ku hayo asaguna meesha oo rabaa loo dhigaa kuraasta oo sida ay rabaan ayaa loo yeelaa oo waxa waay mar walba waa iska wax uu iska muuqdo nin doorta maxaan oo dhahdeen hadda kor Muqdisho ka dhacdo mugti tiyo kale waay
marka Ismaaciil Cumar Geele in ummadda uu dhaafo fiicnaan lahayd waagi horena dadku isku dayi jiray inay meesha ka saaraan laakiin de cod la gedisanayo ama la shubanayo waxa ma soo kordhinayso mar walba waxa waaye ninkii la soo baxay marka doorashaduna qiimo ay ku lahayd hadda hadduu ninkan ahaan lahayo kale kan Turkiga kale oo dadku ay jecel yihiin oo markii taangida soo baxan isku dhigayaan oo nin wadani ah oo markana shafka loo garaacan karo ma ahayn Ismaaciil Cumar Geele waa nin aan naxariisanin qof u naxayna jirin dadka reer Djibouti uma naxariisto qowmiyadaha ama dadka kale wadamada kale oo dariska la ahna uma naxariisto marka ninkan Ilaahay ka qabtaa dheelan Soomaalida nafteeda dib ay ku qabtaa Ilaahay ka qabto aad iyo aad ayuu daawadayaal u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faallooda guud ahaanba geeska Afrika daawadayaal barnaamijkeena faaqidaadana inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa inta dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid lamada waxaan ka tagaynaa sidaa iyo gal